سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إلهي بمهد الحمد لله رب العالمين إنه عافماد قبنا رحمتي أي نود هذا إنه هالكن يسكون لمن بدين ما يو هذا الله كوبان بانولن دونا أورن ما يو حن أنو كتشعله هاي أورن ما يو حائدن كتشعشين لكن waxaan oran doonaa waxa dalkan iyo dadkan u dana maslaxadiisa diineed iyo taadduunyo ay ku jirto walaalayaal waxaan doonayaa inaan la taliyo naftayda iyo idinka iyo hoggaanka maanta dalka u talinaya waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi addiinu annasiixa adduunyadu diintu dhammaanteed waa talo ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yay talo u tahay baa rasuulka la weydiiyey wuxuu yidhi lilaahi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caamatihim ilaahay bay talo u tahay diintiisay talo u tahay kuwa muslimiinta hoggaaminaya ayay talo u tahay dhammaan dadka muslimiintay talo u tahay walaalayaal sidaa ogtihiin ummaddii way soo oodatay meheradihii oo dhan baa kacay dadkii dhibaato badan oo dhaqaale ayaa haysa xukuumadda maanta dalka ka talisa ee xaafadan laga asaasay aa codka wada siiseen waxay keentay in dhaqaalihii xidhmo isla markaasi dadku ay soo wada ootaan waxaanu leenahay war dhaqaalaha ha la furfuro madaxweynaha waxaanu leenahay xukuumaddii kaa horreysay 3 meelood bay dhaqaalaha u qaybin jirtay 2 meelood ummadday ku soo celin jirtay oo circulationku waa badnaa meelna iyaga ayaa farsamaysan jiray waxaa la leeyahay madaxweyne wixii oo dhan 3diiba aday kugu arooreen baa la leeyahay wax la aqbali karaya maaha inay dadku soo ootaan islaamku wuxuu la dagaalamay hantidu inay cid ku ururto weliba hantida muslimiintu ay leeyihiin likay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaa'i minkum waxaanu sakada u waajibinay in dhaqaaluhu in kooban aanay ku koobnaan ayaa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaanu leenahay miisaaniyaddu waa 370 milyan askarigii $80 buu qaadanayaa mashaariic ma hayno dadkiina way soo wada ooteen waxaanu leenahay war dhaqaalaha dowladdu ha furfurto baanu leenahay ta dhaqaalaha intaasaan ka leeyahay baaraka allahu fiikum waxaa kaloo aan ka hadlayaa waddanka waxaa ka dhacay dhubulboob xukuumaddii ay kow ka tahay war dadka muslimiinta ah ee itaalka daran leh maanta buurta kala jeexan 300 oo caayiladood oo kii ku dhashay 30 jir yahay oo kii ku dhashay 25 jir yahay oo kii ku dhashay 40 jir yahay ayaa loo soo xukumay madaxweynaha iyo qoyskiisa oo la leeyahay la dumiyo aqlan wa sharcan laa yuqbalu minhu wax la aqbali karaya maaha war dulmiga diida maalin walba qof bay qabsanaysaa inni xaramtu adh-dhulma calaa nafsii وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلهي وحيد أنيقا ددك أبوري أنيقا دلك أبوري دنيا أنا أبوري حرمت الظلم على نفسي إن أنعد ظلميه نفتي دوان كحاران تنمي فلا تظالموا ورهيس ظلمينا مدحوينا وحنو لنا هاي إن ولالك الله صوحكمو 300 أو قري أو ديسان oo ehelkaagii ay ku nool yihiin aqlan wa sharcan wax la aqbali karaya maaha waxaanu leenahay madaxweyne haddaanad ka raalli ahayn jooji baanu leenahay war kuwa maxkamadaha fadhiya war ilaahay ka yaaba war dadka waa cadaalad fala warka jilicsan in loo gargaaro waa waajib unsur akhaaka daaliman aw madluuman rasuulku wuxuu yidhi walaalkaa u gargaar hadduu dulman yahay iyo haddii la dulmiyayo yaa rasuulallah garanay haddii la dulmiyayo
laakiin hadduu dadka dulmiyayo sidee loogu gargaarayaa ta'khuduhu fowqa yadihi wahada huwa annasr warkadaa baad odhanaysa taa ayay guusha ku jirtaa oo gargaarku uu yahay ayuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxaanu leenahay war dadka ha la mideeyo madaxweynaha dalka hogaaminaya wax badan baad u soo joogtay wax badan baad ogeyd wixii dalkan ka dhacay waad og tahay waxay wax ku hagaagayaan 3 shay baa lagaa doonayaa inaad talada qaadato inaad dadka la tashato inaad talo keento inaad tiraahdo cid la tashan maayo inaad talo keeni weydo inaad dadka talo weydiin weydo waa waxyaalaha rag badan oo hore oo dunida soo hogaamiyey ay ku jabeen waana lagu jabaya war dadkaaga wanaagsan la tasho war aqoonyahaaga la tasho war dadka odayaasha ee dunida hogaaminaya ee dalkan u soo halgamay ee wax ka ahaa war la tasho madaxweynaha waxaa la leeyahay wax walba isagaa isku koobay dhaqaalihii isagaa isku koobay taladii isagaa isku koobay nin wax walba yidhi anigaa garanaya waa nin orgi rartay bay dadkii hore odayaasha ay yidhaahdeen war dadka la tashaanu leenahay madaxweynaha war weli may dhicin in dadku ay kala shakiyaan 1991kii baynu dib ugu noqonnay qoqobka maanta jira cid xukuumadda ku wehelisaana ma jirto rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska alimaam muslim uu wariyey waxa uu yidhi madaxdiinnu waa kuwa aad jeceshihiin ee idin jecel ee idin soo dhoweeye ee idin dhex gala ma aha kuwa aad necab tihiin ee idin nacdalaya ee idinkuna aad nacdalaysaan ma aha kuwaasi ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu leenahay madaxweynaha dadkaaga la tasho oo qabaa'ilka la tasho oo dalkan waa la wada leeyahay rag gogashii waa cadaalad rag gogashii waa nabad weyn nabadi jiri mayso haddii aan wax la wada yeelan nabadi jiri mayso haddii aan dadka si sima wax loogu qaybin nabadi jiri mayso haddii aan dalkan taladiisa iyo hantidiisa aan la wada yeelan la aqbali kari maayo madaxweynaha iyo wasiirkii maaliyaddu inay dalka oo dhan u taliyaan waxaanu leenahay weli may dhicin xukuumadihii jiray in wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha dalku ay labadooda oo keliya ay noqdaan kuwa habeen walba u shira ummadda intii 4 madaxweyne ee ka horreeyey madaxweynaha maanta jooga jamhuuriyadda somalilan waxaanu leenahay war talada qaybi war wixii tuhun keenaya ka fogow walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa war ilaahay ha laga yaabo war ilaahay ha laga yaabo waxaanu leenahay xukuumadda war dadka ururi ninka dadka ururiya ee dadkiisa ururiya ayaa quwad leh waa ogtihiin maanta magaaladu hargeysa lagu qaybsan yahay oo runtii dadku sheekadii ay kala qarsanayaan baaraka allaahu fiikum war dadka ha la mideeyo war waxa yaray inaga dhexeeya ee allahuma salli calaa sayidina muxamedin soo xiranaya inagu filan war dadka ha la gaadhsiiyo war si tuhunku uu u yaraado waxaa yar dadka ha loo qaybi ilaahay waxaan ka baryayaa in uu xukuumadda inoo hagaajiyo dariiqa toosan uu tuso cadaaladda uu tuso madarkaa khayrka qabay ilaahay siiyey ilaahay inoola ballaadhiyo reer ceelafweyn waxaanu leenahay war ilaahay ka yaabo war dilka qofka muslimka ah rasuulku waa ka digay waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaauhu jahannam waa dad walaalo ah iminka gacmo kalaa soo galay waxaanu leenahay war heshiiyi oo shareecadda u soo noqda war ninkii nin dila iyadoo aan reer hebel laga dhigayn iyadoo aan aanan laga dhigayn si dilkaasi inooga joogsado shareecadda ha la fuliyo oo ha loo dilo baan leeyahay baaraka allaahu fiikum dembigeenna ilaahay ha dhaafo kii waalidkeen ilaahay ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha inoo fudaydiyo sala allaahuma calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabih waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaauhu jahannam waa dad walaalo ah iminka gacmo kalaa soo galay waxaanu leenahay war heshiiyi oo shareecadda u soo noqda war ninkii nin dila iyadoo aan reer hebel laga dhigayn
iyadoo aanan laga dhigayn si dilkaasi inooga joogsado shareecadda ha la fuliyo oo ha loo dilo baan leeyahay baaraka allahu fiikum dembigeenna ilaahay ha dhaafo kii waalidkeen ilaahay ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha inoo fudaydiyo sala allaahuma calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabi